warfaafinta ayuu wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska ah. اوكي waxaad tiri ilaalis qaas ka ah ayuu wuxuu ahay maxamed gacmo dheere oo ahaa ninkii wasiirka warfaafinta loo magacaabay xilligii Almahdi Soomaa saas aad iyo aad ninkaas uu ahaa ilaaladiis ka tirsanaa ninkii markuu meeshaas ku soo galay asagoo tuuto wata qoray ka wato na soo galay kadib shaqaalihii magacadooda kala bartay reerahoodu kala barbartay meeshuu nala joogi jiray shaqaalaha waagas raad muqdisho ka shaqeyn jiray marka shaqaalaha ka shaqeynay wariyaasha ka shaqeynay waxaan rabnaa bad inaad wariyaasha Soomaaliya dhan may u dhamaayeen bal si fiican ugu dhaqee horta Soomaali ay u dhamaayeen inta Soomaali ay ka koobanto dhan meesha joogtay wax wariye oo dadkana qabina ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiyaa joogay dad raxweena joogay dad diraa joogay kullu wala joogay meesha marka inta Soomaali ay ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan qarin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhex milmay shaqaalihii asagoo aad waagaas u daneynayay saxaafadda oo aad u jeclaa marka wuxuu dhigi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin active oo dadka inuu dhex gala jecel qorigiisa inuu wadan jiray qorigii kama reebanayn asagoo marka studio la soo gali jiray taasoo qorigiisa wato marka ninkii markii dambe qoor hor ma laha nin aqoon hor u laha nin dhisan miyuu ahaa mase nin iska wuxuu ahaa wardiiska taariikh nololeed macnaha hadda intaad ka taqaano oo meesha ka barat asiga absalaam wallahi anaga asaga wuxuu noo sheegay anaga hor uma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macallin BB ah xilligii dowladda gacanka kadibna qorigaan aan qaato u dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan ka soo jeeday ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosanahay wasiirka ayaan u ahaa ilaalo saasuu markaa nagu soo galay kadibna wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal la caawiyo marka madaxa raadiya waxaa ahaa oday la dhihi jiray allah u naxariistee dhaashane maxamed faarax dhaashane xilligaas madax idaacadda TV raadiyo muqdisho waxaa madax ka ah tiri dhaashana madax ka ah waa qaybta raadiyo TV ma jirin oo malena ma shaqeynay TV howlgabo ah marka waxaan rabaa dadka Soomaali inaa wax dhab u sheego dad Soomaaliyeed meesha ku dhintay dad Soomaaliyeed haddii ninkan walaalkeena uu yahay dambiile oo dambigaas galay oo beelihii laga tirada badnaa ee daarood markaas magaalada ka qaxay uu dhibaateeyay iyo dad kale Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan bilsariix u hadalno oo Ilaahay ka cabsano run ahaantiina aad sheegto hataa qofta marqaatiga koowaad Cabdisalaam mar labaad aan kugu celinaa xusuustaada inaad dib ugu noqoto adoo ka faa'iideysanaya arrintan arrin sahlan maahan nin Soomaaliyeed waaye nin waliba reer caruur haysta waaye inaan ku gefno ama dambi ka galno marno waa nin Soomaaliyeed laakiin hadduu dambi shacabka Soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka gal waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed loo cadeeyo marka waxaan rabaa badina xusuustaada intaad ka barat intii yareed oo taqiin intaad ka barat bal adoo u sii dhacay falaalka iyo sheekada si u dhacday bal waxaan rabaa inaad intaad ka barat inaad noo taabato adoo maasan did cadaada oo maasanta aniga horta 2 mitir ay sugayso cid bina aadana oo aan mataqaana ka baqay ama aan figa xishoon ma jirto qofka xaqiiqada aniga haday hooyaday ay ku dhashay hadaad dambi ummadda ka gashid oo aan noolahay markaas waxaan leeyahay ninkaas ummadda laga qabtay dibka hadda ka hor ayuu geystay ninkani markuu shaqaalihii saas ugu milmay waxaa lagu xiray nin la yiraahdo Cabdi Shiicali asaga buu yaqaanaa Allah yarxamo Cabdi macnaha waxa shaqada nin jecel u ahaa marka maadaama adeerkiina uu noqday wasiir uu ahaa gacmo dheere asigan waa ilaalo ku soo galay ayaa waxaa lagu xiray kadib shaqaalaha raadiyo muqdisho ka mid noqday Soomaa wiil okay waaxda raadiyo muqdisho la shaqeynaa teebeed qaybtaysa ahayd adoo faahfaahinaa insha Allah waxaan rabnaa wixii sayta u kala dhigno mogtaa ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yiraahdo oo soo saara ka ahaa oo la dhigi jiray Cabdi Shiicali Allah u naxariistee xoogaa ina soo dhawaato jeclaan si mikrofoonku ugu dhawaaday Cabdi Shiicali soo dhaw bravo Cabdi Shiicali bravo Cabdi Shiicali nin la yiraahdo oo asaga uu garanayo oo qoladan Soomaalida ay dhahdo Carab Saalax Cabdi Shiicali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu ka ahaa program soo saare iyo soo jeediyo labadaba ka ahaa Allah yarxamo okay marka ninkaas ayuu barnaamijka la diyaarin jiray asagoo raaci jiray asaga markii dambe u dhiibay dhowr program uu yiri bal ila akhri waa talantaali aan wada akhrinayna Cabdi Shiicali ninkan soo saaray kadib Cabdi Shiicali wuxuu ku shabadeeyay inuu yahay nin daarood waan Arab Maxamed Saalax waa wuxuu ku shabadeeyay inuu daarood yahay
daarood waayu dhahay ninkan booskan anigaa ka qaadan doona mustaqbalka macnaha hadalkaas adiga ma taagna markuu lahaa saad ku ha ogaata ha hadalkaas waa joogno anagoo joogno oo wakaaladda wararka joogno marka ninkan mustaqbalka aniga waxaan u qaadanay mustaqbalka in uu ninkani uu noqon doono nin kaga fiican ama kaga cod macaan ama kaga wax soo saaris badan saas daraaddeedna madaxda ay ka qaadi doonto cabsical la dhihi doono ninkan ayaa kaa aktifsan ninkaana ku wareejinay meesha saas u haysteen marka adig markuu hadalaas dhihi jiray annaga waxaan u haysanaa ninkani wuu ka aktifsanaan doonaa wuu ka barnaamij raadin badnaan doonaa wuu ka cod macaan waa ka xumahay waa ka go'yey laakiin nagu soo noqon doonaa cabdisal waa kusoo noqotay maasantahay waa soo noqotay cabdisal cabdisal waa soo noqotay maasantahay marka waa ka xumahay qadkiisa xoogaa ciladaa kusoo baxday insha allah laakiin qadka wuu iska hagaajin doonaa insha allah cabdisalaam waa ninka markhaatiga nool oo hadda lahayo oo weliba dadka si wanaagsan u yaqiino goobjoog ka ahaa la soo shaqeeyey taariikhda uu soo sheegi doon insha allah uu nagu soo noqon doonaa cabdisalaam insha allah sidaas kusoo noqon doona qadka kusoo noqon doona dhibaato malaha balse intaan noo soo noqonaya cabdisalaam waxaan jeclaan lahayn bal inaan waraysi xasaasiya laba waraysi uu bixiyey laakiin mid kamid aan soo qaadanay waa mid uu ku qirinaayo inuu ahaa wariye inuu ahaa oo maanta bixiyey waraysigaasaan rabnaa bal inaan dhegeysto nocyar waa isku soo noqonaynaa cabdisalaam waa soo noqotay braawo cabdisalaam aad iyo aad waa mahadsan tahay waa soo noqotay cabdisalaam waa jeclaan lahaa inaha braawo allah ciise waa soo noqotay cabdisalaam marka waxaa ka wadaa markaas tartan inuu meesha ka jiri doono halkaas iyo wad marka ka soco halkaas marka ninkan waxaan u malaynaya inuu tartan geli doono uu cabdishii cali booska asaga lagaga qaadi doono ninkii kadib waxaa noo yimid nin asagana allah iraxmo oo la yidhaahdo abukar wariye la dhihi jiro asagana oo dhallinyarada ka mid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas laakiin wuxuu iskaa nin dhallinyara iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo qaarkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yidhaahdo shiiqaal waa gart kaasina magaciisa wariyaas kale magaciisa abukar aa la dhihi jira abukar yare abukar wariye inta badan ay dhihi jireen soo marka nin aad iyo aad active u ahaa abukar marka abukar dhallinyaradaasuu raacay kadib wuu soo noqday abukaraa noo yimid mahad allah iraxmo oo ahaa madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska mahad aadan xasan mahad cadda la dhihi jiray iikaadi hega waalin waxaan jeclaa marka hore inagu socodso kii oo la shaqan jiray magaciisa muxuu ahaa kan waxaa tiri abukar wariye waa shiiqaal waa wiilkaas carab saalax uu ahaa kanina wuxuu ahaa abukar ka kale magaciisa tiri iwaali carab saalax kan ahaa ii sheeg cabdishii cali cabdishii cali wuxuu ahaa ninka wariyaha qaybta barnaamijka ganacsiga ganacsiga u qaabilsan raadi muqdisho okay kaas waa carab saalax waxaan jeclaa nin wada qabiilkiisa inaan insha allah xataa laftiisa aan xusno u kaadi marka kaas labadaas waxay ahaayeen cabdishii cali iyo abukar wariye labadaas shaqaali carab saalax ahaayeen labadu marka waxay ka shaqeynayeen waa ninkan okay hore ugu soco marka haye raadi muqdisho ay ka shaqeynayeen mahad aadan xasan nin la yidhaahdo asagana oo ahaa ogaadeen oo ahaan jiray madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska asagana mahad aadan xasan la dhihi jiray mahad aadan xasan haye oo asna ahaa ogaadeen oo ka soo jeeday asagana wuxuu ahaa madaxa xafiiska ogeysiiska raadiyo muqdisho madaxa ogeysiiska okay waa gartay saddexdaas marka asay toos ula shaqeynayeen laftooda sooma may ulama shaqeynayeen macnaha raggaas wuu calaamaysta rag u calaamaysta waa ma fahamtay asaa calaamadaystay waa gartay wuxuu u haystaa markaas ayuu waa gartay marka xaaladihii qabiilkan aad u kacsan marka xilligaas sooma aad u kacsan abukara marka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo kismaayo ka yimid marka abukara marka sheekeynayey markaas waxaan taagannahay meel la yidhahdo wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona annagoo badan marka abukar wuu noo sheekeynayey hebel baa xag kaga soo tegey hebel baa xagga kusoo arkay waxaasuu daldalay marka ninkan wuu soo galay abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynayo marka wuxuu nisbaystay maadaama abukar ilaa dhulkaas tegey uu dhulkaas kasoo warramaayo inuu yahay familkaas marka abukar liiskii uu ku darsada asagana uu dhawaanahan uu soo afjari doono ma fahamtay nin la yidhahdo maxamed cali xaange allah yaraxma asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaligaba barnaamijyo ka samayn jiray
oo xaqiiqatan xaangi taariikh dheer gadaalan ka geli doonaa marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax afartood hal subax uu dilay waxaa tiri cabdi sheekh oo carab maxamed saalaxa abubakar wariye oo shaqaala mahad aadan oo ah ogaadeen iyo maxamed cali xaangi oo ahaa nin ma jarteen wa aad iyo afartaas hal subax ayuu sarta meesha musawaca dheer oo badda iyo dhulkaasoo dhan ifii mataqaanaa oo baraawo musawac hadda waa shaqeeya musawac dheer waa fahmay afartaas musawacaas ku dilay haye meeshaas musawacoo la galay meeshaasuu ku dilay allah yaraxmo waxaa kuu soo haray nin yidhaha cabdiqaadir cali iidle oo ahaa nin xawaadla asagana sog marka cabdiqaadir cali iidle cabdiqaadir cali iidle oo nin xawaadlaa si fiican haye okay kana waa lambar shanaad waay waxaan rabaa marka dilalkusay u dhaceen inaad noo sharaxdo dilalkusay u dhaceen ilaan waxaan mogtahay lafteeda caawa waxaan dhegaysan doonaa ummadda dhan aan dhegaysanaysa soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaan rabaa inaad bisaraxo aad qolo nin walba sida u dilay iyo taariikhdu haddii aad xasuusto taariikhda xasuusto iyo sababtu iyo xilligu dilay iyo waqtiyada kala duwanaa xaaladaas waqtigaas waxay waqti xaaladdu xun tahay marka insha allah ku noqoba insha allah maasan horta ninkani marka ugu horreysay aroori hore waxaa shaqada soo galay ninka la yidhaha allah naxariistee mahad aadan xasan mahad cadde ma xasuustaa taarikhda ma xasuustaa taarikhda waa abril ayay ahayd 8-9 meelahaasay ahayd 1991 abril 1991 hore u socoye marka mahad ayaa aroortii hore shaqada soo galay 8 barka meelahaasay ahayd marka mahad cidna ma tabin sababtoo ilaalada irid ilaalinayso ayuu subax aroortii la soo fadhiistay haye mahaduu gacanta qabsaday meeshaasuu la galay marka dhalinyaro marka meesha taagnina noo sheegta annaga waxaan soo galna 10kii waxaa la yidhi mahad saaka xafiiska ma uusan furin dhalinyarada iridda taagnaana la taagneed oo dibadday la taagnaayeen waa garta taakiyaa wuu ku jiray bes marka mahad la waayey oo saaka uusan meesha furin xafiiska ogeysiska uusan furin iyo dhexdii ogeysiska uusan furin marka shaki yaraa bilowday mahad ma laabanine shaquu usoo ka lahay xaguu ka baxay haye kadib abukar wariye haddana soo galay abukar wariye iriddu ka qabsaday haddana meeshuu la galay wuxuu la galaa musawicuu la galaa meesha kore meesha musawicuu la galaa meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan waa garta wuxuu dilay maa dilay abukar wariye dilay waa hal subax waa bisha waa abril 91 haye horu soco kadib aniga iyo waxaa nimid allah yaraxmo oo ila seexda habeenkaas xaafadda ila joogay maxamed cali xaangi wuxuu ahaa ninka tiftiraha afka oo majarteen ahaa luqadaha qalaad iyo luqadaha soomaaliga waa gartaye marka barnaamijyo fara badan uu samayn jira allah yaraxmo xaangi markay dagaaladii dhaceenba anuu ii soo guuray wuxuu yidhi niyow wuxuu aad u jeclaa aniga markaas ma fahamsanayn xaqiiqatan ma fahamsanayn 2 mitir ay sugayso marka barnaamij samaynayn wuxuu dhihi jiray aniga asaga ama ummad kale aan la sameynaa wuxuu dhihi jiray heesta aad ku soo qatimaysid cabdisalaan oo ha ahaato heestii maxamed calciga waa garta cirkaa dheer dhulkaa dheer heestaasuu saari jiray ma fahamta waa garta marka maxamed cali xaangi waa joogaa subaxaas labadiina waa timaadeen aniga waa isla nimid markaan isla nimid waxaa la yidhi wasaaradda boostada ayaa riboor ka jira dhaashana allah u naxariistay aa yidhi cabdisalaan meeshaad ka laabo meeshaas riboor nooga soo qaado wasaaradda boostada isgaarsiinta waxa laga qabanaya shaqo xagga riboor nooga soo qaado waa garta waa laabtay xaanga marka meesha ugu tegay ilaan wasaaraddu dhex joogaa intaasoo boqoloo shaqaalo dhex joogaa marka cabsi kama qabo sama macnaha waxaa daaroodka la waarsana marka aduu laftaa waxaa waaye amnigiisa marba wax ka ogaataa jecesho waa la socotaa yani mar walba ka waraysaa saas wada meelaan ka wada shaqaynaa ninkii isku meelaan ka wada shaqaynaa hal meelaan soo wada galnaa haddana markaan baxayno gurigeyga wada tagnaa gurigeygaan ku wada noolnahay marka xaangi ani cabsi kama qabin intuu ani ila joogo wax cabsiin kama qabin ma fahamta waa gartay iyo intuu wasaaradda joogana waxaan isleeyahay intaasoo milyan oo shaqaalaha dhex joogaa problem ma dhacayo ma fahamta waa gartay calaa kulli xaal
ninkii hadduu alla ku idmaayo waxaa xitaa ilaahay badbaadiyey nin la yidhaahdo cabdirasaaq xirsi xasan oo isagana majarteen ahaa iyo gabar iyadana meesha ka shaqayn jirtay rag ayaa la qabsaday cabdirasaaq ayo oo inuu kaxaysta rabay cabdirasaaq xirsi xasan oo majarteen ahaa ninkii adi calaa kulli xaal yani hadalka aan isku milqinin calaa kulli raggii markuu afartaas ka soo taqasulosay ayuu horta xaange iyo cabdishee cali oo markaas dekana qabay ayuu u soo laabtay waa garta marka sidii xoolo ma wadana dadka macnaha waxaan rabaa saad igaga dhadhiciso saa u fahmaan rabaa dadka dhadhegeysan u fahmaan ninkan dadkii u imaana qof mar wadana wuxuu geysanaa meesha kore musawaca ka dusha uu geynaa uu soo dilaa rasaasta soo la maqlimaa meesha soo maaha meesha raadi muqdisho soo rasaasta la maqlimaa see ku dhici kartaa in qof inta la wato la dilo mid kale haddana la wato la dilo waxaan rabaa bal inay bilsarax bal noogu si tabal noogu sheegto waa su-aalaha le meesha kiimide horta sarta musawaca ma la fuulayo ganjaalka weyn marka laga soo galo hoosteed meesha dilaya ma faham marka iridda ganjaalka laga galo wasaaradda warfaafinta waa taqaani waxay kasoo horjeed ciidanka booliiska kasoo horjeeday meel maqaayado meel oo kafeteriya shaaha laga cabo shaqaalaha ka cabaanaya lahayd shaqaalaha ganjaal yaraa ku dheganaa oo musawaca laga galo sartaas laga galo musawaca ilaa waa ganjaal lahayd marka ganjaalkaasuu la gelaya meel barxad oo meesha isla meesha ayuu ku toogto ma faham waa gar marka hadduu alla ku idmaayo ninkii sidaas ayuu horta maxamed cali ninkan la yidhaahdo mahad iyo abukar wuxuu ka helay ganjaalka gudaha maba soo gelinba ma fahamto waa garta oo qof ogaan karta ma jirto ganjaalka weyn oo aragtay waayo rasaas dhacday rasaasta dee dhacdo soo la maqli ma cabdisalaam see ku dhacday rasaasta may rasaasta dee wadankii waa iska u s c waagaas xabadaha iska dhacayeen mana la tuhmaynin midda kale ninkan afsaaru kaga dhigay degdeg meeshuu ku dilay wax aroor hore ahayd qof tuhunta ma jirto labadaas aroortii hore uu kaga taqallusado haye okay markii goormaad ogaa doontii marka adigu goormaad ogaa doontii ilaa maalintii intaas adiga saaxiibka adoo shaqo ku maqanaa saaxiibkaa la cunay saad sheegayso ninka ahay maxamed cali xaangiya ugu dambeey ayaa la cunay marka afartaas markuu cunay kadib maxaa dhacay bal intii wixii dhacay bal noo sheeg kadib aniga horta 10 subaxnimaan soo galay markaa 10 soo galay allah raxmad dhaashane ayaa irid iga hor yimid meesha barxadda iga hor yimid oo wasaaradda faafinta gudaha marka loo soo galo markaas wuxuu ugu dhahay niyo orod carar wasaaradda waxaa tagtaa boostada isgaarsiinta barnaamijkaas nooga soo qaad waa gartay marka xaango ila socday xaango waxaan ku dhahay niyo halkan iska sii fariisto dhalinyarada iskala sii sheekayso waa kuu soo laabana xaggan tagaa markaasuu dhamay haddaan halkan joogo cabsi ma qabo iska bax haye waa iskaga soo baxay xaggaasaan tegey marka xagga ka soo laabtay yaa shaqaalihii oo buuqayaan u imid meeqa saac soo laabatay marka dilku waqti u dhacay soo laabtay adi meeqa saac soo noqotay waxaan rabaa ilaa adduunyada dhegeysanaysa wixii inaan dhabta inaan wixii dhabtiisa sidii ahayn xasuusano 6 saac ama 12 duhurnimo soo laabtay markaan soo laabtay meeshuu kacsanaan imid cabdiqaadir cali iidlahan allah naxariistay iyo cabdi sheekh doon nageeyey iyo rag fara badana meeshii walaacayo galgalinaya shaqaalo fara badan oo iska daba wareegaya meesha ugu imid iyo oday la yidhaahdo cali waranto oo madaxa farsamo yaqaanada ahaa iyo dadkaas hadda ma nool yihiin raalow dadkaas hadda ma nool yihiin oo hadda aad sheegayso oo maalinkaas markhaatiga nool ahaa wax ma ka nool yihiin ma noo magacaabi kartaa xilligaas taarikhdaas wuxuu dhaceen dadka jooga oo nool oo hadda raadi muqdisho ka shaqeeya ama adduunyada meel kale ka jooga si aan waraysi u xoogaysto horta wallaahi rag fara badan aan nool hadda cabdi sheekh doon nogeeyo kale allah raxmo hadduusan dhiman hadda saacadaha hadda aan taaganaha wuu noolaa wuuna joogaa hadda saan jeclahay subaxaasan sheegaa subax dhib ka dhacaya dadka jooga u baahanahay oo si aan ula xiriirno aad wuu joogay cabdi sheekh doon nogey wuu joogay waana ninka keliya ka dagaalamay sida xaqiiqda ah waxaa kaloo joogay nin la yidhaahdo cabdiqaadir maxamuud walaayo wuu joogay waxaa joogay oo ninkan hadda cabdirasaaq xirsi xasanka hadda aan kuu sheegay wuu joogay hadda inkastoo maqli fiinland ayagu ku nool yahay waa inaan raadiyo waayo ma hayo ciwaankiisa laakiin rag fara badanaa joogay oo waagaas noolaa hadda shaqaalihii ila shaqeynaa waaye dadka shaqaalaha oo maalinkaas dhacdadaas jooga oo adigu aad ka mid ahayd
oo aan rabnaa haddii aan xasuusteeda inaad xasuustaas insha allah bal inaad kuna noqoto si aan waxaan rabnaa dadka kale laftooda aan u helno dhacdada see u dhacday oo dhabta ah waxyaabaha ka tagta ama ilowday inaan xasuusanno oo haddii ay suuragal tahay bal mar labaad ku noqo si bal haddii xasuustaada ay suuragal tahay maame waa xasuustaa waxaa joogay nin lidhaha injineer cabdullaahi yuusuf oo haddeertaan muqdisho joogo rag fara badanaa joogay raggaasi waxaa xaqiiq ah dadkan adduunyada sideeda laba mitira dadka sugayso ma fahamta inuu qofka been ka sheega ma wuxuu u taagnaa ama uu markhaati ka ahaa afartaasi nin kadib waatuu haddana soo laabtay marka annaga waxaan ku xaqiijinay ninkan la yidhaahdo oo aad iyo aad kiiska u fashiliyey inuu asaga ka dambeeyo kiiska cabdishii cali ayuu iyo nakaan oo dhahay cabdishii cali wuu dareemay inuu labadii kala waayey saaxiibadiis haddana uu xaange asagoo qasbayo laba wiiloo kaleentoodna ay xaange garabka ka qabtay inay jiidayaan ayuu cabdishii cali indhaha saaray suu cabdishii cali sheega allah yarxam intuusan dhiman cabdishii cali ninkan ayuu soo jiiday dhalinyaro fara badan oo kusoo yaacay war ninka xaggee u daa markaasuu dhaa war ninkaan iyo mataqaana dhexdeena ka baxa hubeysee markaas ninkaan hubeysee qorigu wataa ma qori wataa wiiloo kalaa la socotay cabdishii cali wuu qalqalay markaasuu dhaa war ninka xaangu hadda halkan la galay ninkan iga reeba asagoo dhahayo ayaa uu isagana qolka la galay isla markaas xabadihii intii cabdishii doon nageeyey iyo saraakiil fara badan oo meesha ka dhoweyd ku soo yaacayeen xabadihii uu qabadsiiyey markaas xabadihii si fiican loo maqlay marka gudaha la galeen waxaa la arkay mahad iyo abuukar iyo xaange iyo cabdishii cali markaas u dambeeye uu sii jiidayey afartooda markaasaa raxdooda loogu tegay meesha afartooda hal maal afartooda marka ma hal maala la duugay aaskaas ku dhacay xaggee lagu duugay adigoo maasan horta waa arrin muhiima saa ii weydiisay ninkii isla markii gasgas nin la yidhaahdo generaal gasgas inaad taqaana jeclahay cusmaan gasgas taliya-xigeenka ciidanka booliisku ahaaye ha ayaa markaasi meesha marayey oo xeradiis sii gelayey meeshuu arkay wasaaradda warfaafinta irideeda laisku dagaalayo laisku buuqayo asagii ilaalihiis way istaageen way soo degeen sidee wax u jiraana la yidhi waxaa la yidhi raggaan oo shaqaalaha ka tirsan ayaa meesha meydkooda lagu helay ninkan ayaana ka dambeeyey kiiska wuu inkiray isla markii wuu cararay meeluu galaa la waayey saaxiibadiisa gaariga dabada usoo marka gasgas meeshu wuxuu yidhi kiiskan waa la baarayaa xeridiisu iska sii galay xoogaa kadib waxaa noo yimid nin la yidhahda allah yaraxmu uu dhintay gentleman inaad taqaana male oday siyaasi ahaa jiray si fiican kiiskan waa la baarayaa isdejiya shaqaalihii waxaas uu qudbeeyey nimankii markii xoogaa gabalkii dhici rabay ayay gaari ku qaadeen meedadkii waxay ku daadiyeen waddada warshadaha oo ma la aasin meeshay ku daadiyeen way ka soo tageen meydkaas yaa qaaday oo kusoo baabuurta intu ku qaaday meydkii jidka soddon kusoo daadina taas bal ii xaqiiji waxaa kusoo daadinaya beeshuu asaga ka dhashay raggii meesha ka joogay oo mooryaanta ahaa oo irinta taagnayd okay oo raadiyaa haystay waa fahmay haye waa beesha saleymaan waa haye wax ma ka xasuustaa dadka saas weegaas xilligaas meesha ka shaqeynayay oo asiga la shaqeynaya wallahi waa ciidan waxaan waa u s c ahayd ciidamo qoryo watay ahaayeen wax magacooda lama garan karin malaayada marka asagaa naga soo dhex galay asagiina soo dhex galanana wuxuu noo soo dhex galay problemkaan ma fahamta waa gad asiga hore shaqaale dowal muu ahaa hore muusoo shaqeeyey suu noo sheegay macallin iskuul b b baa ahaan jiru nagu dhahay macallin b b na hayo kuyir okay aye marka dilkaasu waxay noqdeen marka saa ii sheegta afar wuxuu dilay cabdirashiid wuxuu dilaa tiri ninka la yidhaha cabdirashiid oo ahaa carab maxamuud saalax wuxuu dilay abuukar weriye oo shaqaalaha mahad aadan oo ahaa asigana ogaadeen waxa uu dilay maxamed cali xaangi oo ahaa majarteen afartaas wuu dilay waxaan rabaa marka cabdiqaadir cali iile iyo cabdirasaaq xirsi ayaguma ka fakadeen see wax u dhaceen malaayig bal noo xaqiijisay ninka leeyahay cabdiqaadir cali iile iyo xawaalaha iyo cabdirasaaq xirsi xasan cabdiqaadir cali iidle allah u naxariisto wuxuu ahaa tafaftiraha raadiyo muqdisho ahaa markaas ka hor uu ahaan jiray xillaa dowladda gacanka xataa u ahaa waa fahmay cabdiqaadir cali iidle wuxuu taagnaa wasaaradda warfaafinta meesha laga gala waa taqaanaa meel yar oo shubaa ku aadan maaragtay oo balkoon camal baal shub ah marka jaranjarta la fuulo shub ayaa meesha dushaada ah sooma marka shubkaasuu taagnaa ninkanina
gacma dheer ayaa wuxuu u soo qoray maadaama uu yiri waa xanuunsanahay lacag yar oo gunna ah oo la yiraahdo farmashiyaha kaga soo iibso camal haye lacagtii marka wuxuu ku socotay nin la yiraahdo cali baay oo ahaan jiray ninka faaladii u qori jiray oo markaas ahaa u qaabilsanaha dhaqaalaha wasaaradda warfaafinta waa garta marka waxaa la yidhi warqadan qaado 100 iyo xoogaa kun meel mise 1 milyan wax saas ah markaas la orod cali baay ula tab kala ka qaada lacagtan haye ya asaa ula tagaa ها تاكي مركو حولي يمد علي باي وحو كلها هي العقد با وزير يسو قري سي ومالين كلا يا مركز ما اها مالنت او رغان دلم oo ninkii asoo u kaadib Cabdisalaam ayda balta arin kala xumaan mushkil kala ninkii asoo dadka laayay ayuu hadan dhex joogaa dadkii miya waxa wasaaradii wili ka shaqeynaa oo dadkii uu laayay shaqaalihii wasaaradda warfaafinta asigoo laayay hadan ka dhex shaqeynaa miya oo ka dhex shaqeynaa oo waliba ilaaladii wasiirka yaa wali oo ilaalada wasiirkaas magaciisa ku cilmi marnaba dadka kula maqnaane maxamed maxamuud gacma dheer ali raada waa wasaariyi hore oo xilliga magacaabay Cabdullaahi Yuusuf waa daba wasaare noqday may waxaa madaxweyne ahay cali mahdi waxaan ra'iisul wasaare ahay kama hadlay xilli dambe oo ra'iisul wasaare loo magacaabay oo sacawaay xilli oo sacawaay maxamed gacma dheer laftii nooliya صح ra'iisul wasaare kumeel gaar hadda ka soo mar sax bravo waa fahmay marka afartaas soo dilay ayay marka tan sheekadan kala dood marka qisadan ka ku dhacday marka noo dhameystir qisadan wasiirka ayaa wuxuu soo saxay lacag yar oo ninkan dhaqtar ku tagay boqolaal ma ahayd mise milyan wax saas ahayd cali baay ayuu u qaabilsanaa wasaaradda warfaafinta qasnaji cali baay uu tagaalay ka qaado lacagtan cali baay uu yimid cali baay wuxuu yiri wax lacag oo mataqaana soo sarrif habeeraatay ma jirto lacag kaash ma hayo laakiin daawadan hadda u jiran tahay anaa kuu soo gadaa magaceediisii inta kuu soo hartan oo dhaqaalaan oo ku siinaya laakiin marka hore hadda wax kaash ma hayo markaasuu yiri maaniga asaas ugu leedahay uu carray iriduu tagay iridii wuxuu ka soo qaatay mid meesha joogo qor ka soo qaatay laba wiil oo qoryo watan ka soo daba carreen jaranjarta uu soo fuulay cali baay wuxuu ku jira xafiiska iridda waxaa taagan nin la yiraahdo cabdiqaadir cali Allah yarxam marka wuxuu is yiri intaad gudaha gelin xabad inuu qoriga shaqeynay in kale xabad barowaa rid marka wuxuu ka qaldantay meesha inay taasho xabadii barowada ahayd intuu san cirka u ridin ayuu shubki ku dhuftay xabadii way soo laabatay cabdiqaadir madax kaga dhacay cabdiqaadir goobtii ku dhintay Allah yarxam cabdiqaadir waa qofkii shanaad u dilay cabdiqaadir markuu meesha ku dhaco dhintay ninkii wuu falkanaxay wuu cararay meesha qaybta dambe cabdiqaadir waa xawaale suuq waa isla fahamsanaa cabdiqaadir waa xawaale kuwan kale waxay lahayn dad oo beelahoodu macnaha daaradkii qaxay qaybo kamida iyo dad uu ku maxamed salixna iyo intaas ay yar shaqaale ahaayeen marka laakiin tan wiilkan waa wiil uu ama waaso ama cabsigeli uu islahaa laakiin ay xabadda ku fakatay marka xawaalo noqday ma sii jooga haddana kuwii hore waa sii jooga aragnay marka ninkan xawaale markuu dilay maxaa dhacay marka uu ninkan dilay Allah yarxamo isla markaas waxaa meesha marayay oo markaasna ahaa gudoomiyaha gobolka ahaa Cumar Xaashi Allah yarxamo inaa maqashin galay waa sax Cumar Xaashi meesha baarlamaanka ilaa iyo guriga cali mahdi ciidamadii joogan waxay ahaayeen beesha uu ka soo jeedo cabdiqaadir cali isla markay maqleen ninkaana la dilay way soo yaaceen meeshii soo galeen waa garta xawaalihii markay meesha soo galeen ayagoo hub fara badan watay iyo baabuur fara badan waxaa la harqiyey qoladii uu taakay la jooga meesha ayaga dhan waxay ku ahaayeen 30 iyo waxsaas wiilay ku ahaayeen 300 oo ciidan ah timid oo familkii cabdiqaadir cali Allah yarxam waa garta dhulkii dhan ay qabsadeen waxay dhaheen wax nuuxsan kara ma laha taakay marka wasaaraddu ka dhaxbaxay madaxtooyadu galay isla markiiba inta qoriga tuura marka madaxtooyada xilligaas Salamaanka dhinaca keesta madaxtooyada markaas sacadays ما سعادة جوجي لكن عيد ما تروح جري مركز سورة وراني غير كاسان هاي حوالي يدلي ربو هاللي بدباج ما فهم واقف طيب بس ماشي كو هايين حواليه لان يرى ماشي جوجتيو أو قرية ودتيو أو كسوج أو تاكي لسعتي يحكوا أرسين جوارد وحيدهن يد كل جزء لما آسيا نكان ولا نمكان على آسيا واقف هرواي جسنينا هوتيل جرجورتن جسنينا مركا رجعنا على آسيا يد مثل وقاتن رجعنا قعني كحفتين باور كي كو قادين واقف
cumar xaashi allah yaraxme iyo rag la socday ahaayeen way qaateen hurwaayay geeyeen saacado kadib galbihii camalay soo sii daayeen ee dheheen orda dadka familka marka loo geeyaa layidhi malaha nimankani ma rabno ninkii wax dilaan rabnaa ma fahamta waa garta nimanka waa la iska soo sii daayey taake ma soo noqi taake marka dibdib kugu soo noqdo ma soo noqon karo sababtoo ah isla markiiba xawaadlihii waxay sameeyeen ciidamadii USCda meesha jooga ayay rag ku darsadeen ma fahamta waxay baawuri soo dhigteen waxay dheheen ilaalada meeshaan wasaaraddan ka mid noqon doonaa ninkaas ayaan ka dhex raadsanaynaa meeshaan joogaynaa waa garta waagaasna wax oo protocol ma jirin wax meesha ka eri kara ma jirin qof kasta meeshay tiraado intaa ilaalo ka naqana qof u diidaysa male meesha iska fariisteen ma fahamta haye taakay marka meesha uu dareemay inay xaaladdu xun tahay kuma soo noqon maalintaasoo noogu dambeysay isla marka waxaan maqalnay ninkii Kenya uu orod ku tegey Kenya markuu orod ku tegey isla markiiba islaan process Canada u xareysay oo meesha ka helay oo tiri guurso islaantii malaha process ciyaalkeedu kula xareysay maqalnay sidii uu Canada ku galay ma fahamta Canada adigu wadada Mareykanka ma Canada meesha hata xilligaas marka uu galay Mareykanka kadib ma Canada uu galay kadib markaan ogaatay go'aansi ku ogaatay laftaada cabsanaan xilligaas dadii raayeen saad ku ogaatay inuu taakii yahay xaalad bal si fiican ugu sharax masa saad ku ogaatay bal arinta ogaansho oo noocay markuu hadda social media soo gala mase social media markuu soo galaa social media markuu soo gal ninkan waa aqaan wajigiisa waa aqaan nin iga dhumaayo ma ahaan codkiisa waa aqaan waa asagii wali wax iska bedelay habeer